bisha Ramadaan waxay tahay waa bil barakeysan oo ah 30 maalmood oo ay muslimiintu ay soomaan iyagoo ka soomaya cuntooyinka oo dhan iyo wax abitaana kulli bisha Ramadaan waa bil cibaado oo la cibaadeysto wadanka Sweden ama adduunka oo dhan waxaa lagu afuraa cuntooyin qaas ah ayaa lagu afuraa bisha Ramadaan qaas ahaan cuntooyinka waqtiga xaadir hadda ka muuqda miiska dushiisa ka muuqda cuntadan oo kale waxaa la yiraahdaa malawax kana waxaa la yiraahdaa sambusi waxa uu caan ku yahay 3 geesood qudaar kana waxaa la yiraahdaa qare ama xabxab malawax cabitaan qaxwe maraq cadde ama soos bur ama bular qudaar hilib bariis oo ka bacdi la cuno iyo bonfrit cuntooyinkaas oo dhan waxaa la cunaa timirtii ayaan hadda meesha uga jeedin oo iyadana u baahan in miiska la soo saaro markaan fiirshay shaashada timirtiina gadaal ay ka soo socotaa waa farsamadii Firdawsa waaye ilaahay shiriix sanada ka siiyo shukriya caawinaysa يا صافي تبتين هذا لك أنا وجدين مركل أفراي وحلو بالله تبتها لو بالله